بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa wax yar ila daawataa ninkan khawaarijka haddii aad dhimato dambaabto maanta yaa kaa badbaadin kara nabi maxamed kaa badbaadin karaa maanta halkan kala dhegeysa marka wuxuu yidhi yaa rasuul allahi yaa khayra kulli alambiyaa najinaa min haawiya yaa zakiya almansari najinaa naga badbaadi min haawiyatin naarta lagu hodana naga badbaadi maayaa ka badbaadiya qul illaahu yunajiikum minha wa min kulli karbin ilaahay baa karbi iyo naar iyo waxba ka badbaadiya ninkan hadalkiisa waa soo dhagaysateen dabcan ujeedka uu u socday horta hore wuxuu ahaa kitaabkii mawlidka ahaa oo aan ku soo jirnay radintii ninkii shibile ahaa oo aan radinaynay qaybtan waa qaybtii labaad beydkan ayuu soo qaatay yaa rasuulallaahi yaa khayra kulal ambiyaa najinaa min haawiya yaa zakiya almansibi yaa rasuulallaahi yaa khayra kulal ambiyaa najinaa min haawiya yaa zakiya almansibi horta hore beydkaas ayuu soo qaatay oo weerar uu ku soo qaaday waxaan u sheegaynaa number 1 beydkaas wax ka hadlaysan ma jiro ceebna malahan waa saxan yahay waxaan kugu sii bishaaraynaynaa inaan wadi doonno mawliidka beydkaasna aan ku celcelin doonno beyd kastoo necab tihiin ayaan aad u akhrin doonnaa si aad maaragtaa muutu biqaydikum caradiinna la dhinta laakiin waxaa maanta halkaa ka caddaaday meesha uu nebiyullaahi maxamed kaa taagan yahay inay tahay meel aad u hoosayso iyo meesha aad cilmi ahaan iyo diin ahaan aad taagan tahay inay tahay meel aad iyo aad u hoosayso meelaha aan filayay meel aad uga hoosayso nin xoogaa wuxuun u baxsan yihiin baan islaawuye laakiin wax kale ma ahan qofka marka uu bidci noqdo oo khawaarij noqdo nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu ku tilmaamay sufahaa'ul ahlaam waa maangaab buu yidhi rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh qofka siduu u caqli badan yahay u fiican yahay u din fiican yahay hadduu nimankaa ku biiro khalaas caqligiisu waa tegahayaa waa qof darooga la siiye oo kale siduu macnaha olyada biyaha isugu daro oo kale noocaas weeye ama binji wax la dhihi jiray iyo weligay ma arag laakiin waa maqli jiray binjiga qofku ma aqaan waxa la dhihi jiray isku sacroon jiray miyaa waxyaalaha noocaas oo kale ah buu qofka waxa weeye caqligiisu waa tegahayaa marka hadda ninka caqligiisu waa tegay wuxuu garan kari waaye nabiyullaahi maxamed hadalkiisa wuxuu yidhi nebi maxamed miyaa naar kaa badbaadinahaya kuwa cawaan ah waa aad u caqli xun oo iska qoslahaya ayaa hor fadhiya wallahi waa nasiib darro qofku markuu caqli xumo iyo doqonnimo isku sii darsado waa nasiib darro waa la iska wada qoslaa nebi maxamed miyaa ku badbaadin kara waxaan kuu sheegayaa nebi maxamed weeye midka anigan haddii ilaahay ii qadaro inaanba janno galo midka iga badbaadiyey naarta nebiyullaahi maxamed weeye salawaatullaahi wasalaamu caleyh taas igahaaga waxa ku dhibcaan qof kasta oo mu'mina oo ilaahay jannada uu geliyana nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh ayuu sababtiisa ku badbaaday oo naarta uga badbaaday taa ogsoonow ilaahay muxuu ambiyada u soo diraa subxaanahu wa tacaala ujeedka ambiyada loo soo dirahay maxay tahay ujeedka loo soo dirahay wax kale maahane in ummadda naarta laga badbaadiyo oo la isku xiro makhluuqa iyo khaaliqa la isku xiro ilaahay iyo makhluuqiisa in la isku xiro shaqadoodu wataasaa si ay naartaas uga badbaadaan ujeeddo kaleba looma soo dirin marka rusushii loo soo diray inay ku badbaadiso inaad maanta ku yacni jeesjeestoo tiraahda nebi maxamed miyaa naar kaa badbaadin kara waa nasiib darra wey haddaba waxaan kuu sheegaya nebi maxamed oo dhahayo yacni aniguna naartaan rabaa inaan inka badbaadiyo adinkuna naartaad ku fakanaysaan asagoo leh nebiyullaahi maxamed xadiis buu wuxuu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh asagoo tusaale ahaan u soo qaatay nin wuxuu yidhi aniga nin waxaan la mid ahabiyo nin dab shitay macnaha habeen oo kale dab nin shitay dabka markuu shita baalalayda waa iyada ku yaacda habeenkii saasay ugu dhacaysaa baalalayda maqsuudta dabkiibay ku dhacaysaa nebigu wuxuu yidhahda wa ana aakhidun bixujasikum anigana saasaan guntiga idinkugu dheganahay biyu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh naartaan idinka celinhayaa buu yidhi oo aan rabaa inaydan yacni ku daadan naartaan idinka difaacaya wa antum tafallatuuna minni anigana waad iga fakanaysaan marka nebi maxamed wuxuu rabaa inuu naarta kaa badbaadiyo adiguna naartaad ku fakanaysaa buu leeyahay marka intii ku fakataa oo nebi maxamed ka fakataa waa intaad nebi maxamed waddadiisa iyo dariiqadiisa ka leexato wey laakiin cid allaale ciddii nebiyullaahi maxamed dariiqadiisa ku taagan nebi maxamed ayaa naarta kaa badbaadiyay la socotaas haddaad ogsoon tahay iyo haddaadan ogsoonaynba hadda ku baraarug waxa naarta kaa badbaadinahaya haddii ilaahay janna kuu sabababa abdagashidba nebiyullaahi maxamed weeye salawaatullaahi wasalaamu caleyh sababkiisa wey asagaa ku dhahaya saas kadaa waxyaalaha asxaab rasuulillaahi afcaashoodii cajaa'ibta lahayd haddaan kuu sheego qofkii iimaan leh baa fahmaayee wahaabi iimaan ma lahan wahaabiyo waa abnaa'ul yuhuud wey yuhuudda carruurtoodii wey yuhuuddaan nagu dhex barbaarinayso ujeedka la rabana waxa weye hadmu diini bismi diini diinta islaamka in la burburiyo magaca diinta islaamka in lagu burburiyo taasaa lagu soo mushaaraqaatay laakiin caamoy ku baraarug haddaba ku baraarug
وعلى رب قلبك إن لك فجي وحواي جعلك النبي الله محمد أجعشها صلوات الله والسلام عليه جعل كاس قلبك كل جن بالا رب إن لك فجي هذه لك فجي نقول في باطه waxaan kuu sheegi doonaa jacaylka rasuulka iska daa nabiyullaahi maxamed jacaylka aad jeceshahay nabi maxamed in naarta aad uga badbaadaysid adiladeedan kuu saaraya waxaan rabaa marka asxaab rasuulilaahi inaan wax ka barakaysano ayaga asxaab rasuulilaahi waxa dhacday saxaabigii la oran jiray cabdullaahi ibn zubayr ayaa waxa dhacday rasuulka maalin inuu istoobay markuu istoobay ayuu rasuulku wuxuu ku yiraahday orodo meel aysan dadka arkayn meel ku soo astur aan la arkayn buu weelkii buu soo qaatay jiirad buu la galay waa cabay dhiiggii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu cabaayay markii saas dhacday uu u yimaada rasuulka ayuu wuxuu weydiiyey rasuulka maxaad ku samaysay waa asturay buu yiri meel aan waxba cid ka arkayn baan ku asturay ma laga yaabaa inaa cabto waa cabayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi haddaba jirkaagu naar taaban maysu yiraahday dhiiggayga jir uu galay qof dhiiggaygii dhiiggiisa isgaleen naar taaban mayso saxaabigaas asagoo saxaabi ah waxa naarta ka sii badbaadiyay oo rasuulka uba cadeeyayba oo si sariixa uu sheegay naarta inaysan taabanayn dhiiggii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi meel ku jiro saxaabiga maxaa ka badbaadinaya naartii dhiiggii uu cabay weeye rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi asagaa u cadeeyayba iska daa acmaashiisa kale uu samaysanayo khayriga inuu xadiiskan jiro wahaabiyo waa iska waraac badan tahay waa khaa'imiin ma jecla wax allaala wixii nabi maxamed iyo manqibadiisa iyo sharafkiisa iyo cizigiisa iyo ammaantiisa ku sugan oo dhan ma jecla laakiin waxaan rabaa ayaga awgood iyo caamadu inaysan tashwiish ku furin darteed baan waxaan rabaa nin kale oo wahaabi ah oo ka mid ah khawaarijta ka mid ah oo weliba kuwa necab mawliidka maalin walba radiye ka mid ah asaga oo xadiiskan soo qaadanaya xadiiskan oo saxiixa soo qaadanayo ayaan rabaa iyadoo kiliibka qayba inaan idinka tusiyo si aad u ogaataan nimanka munaafiqiin inay yihiin caday rabaan way inkarayaan هذا ابن الزبير ليحتجم الحجامة ووضع رسول الله الدم في طست كما وردت في الرواية يعني في صحن في ماعون على قولته ولما دخلوا الدم في هذا الطست قال الرسول عبد الله بن الزبير خذه قال وش ذا قال هذا الدم حجامتي وين يا رسول وين اوديها قال ضعها في مكان لا يراه احد طلع عبد الله بن الزبير كم كان عمره هالوقت من يعرف كم كان عمر عبد الله في هالقصة هذه 8 سنوات عمره 8 سنوات اليوم اصحاب 8 سنوات عيالنا وش اهتماماتهم بلاي ستيشن ولا ماذا لما يدخل هذا على رسول الله والدم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدم يا عبد الله قال ابشر قال وين قال ضعه في مكان لا يرى احد ما يشوفه ولا واحد قال ابشر يا رسول الله خذ الدم وطلع يوم طلع تلفت عبد الله ما شاف احد الارض فاضيه وهو ورا البيت قال يعقل ان دم رسول الله عليه الصلاه والسلام بين يدي ادفنه والله اللي ما دفنته طيب وش الحل قال بسم الله وشربه صنديد ما يلعب شرب الدم رجع والطست فاضي الصحن في يده اقبل على النبي عليه الصلاه والسلام والطست معه قال اين وضعت الدم قال وضعته في مكان لا يراه احد قال وين قال شربته يا رسول الله قال الرسول ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار ويل لك من الناس ليش ويل لك لانهم سيؤذونك كما اذوني وويل للناس منك لان سيكون عندك من القوه والصبر والتحمل والشده ما ليس عندهم ثم قال لا تمسك النار كيف تمس النار جسد رجل اختلط دمه بدم محمد صلى الله عليه وسلم كيف هؤلاء هم الذين كانوا يربون على هذا الجيل على هذا المنهج الجميل الطيب saxaabi kale rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi rasuulka wuxuu yiraahday wax uu weydiiso markaas rasuulku wuxuu weydiistay rasuulka wax kale kuma weydiisanayo muraafaqataka fil janna jannada inaan kugula rafiiqa ayaan ku weydiisanayaa biir jannada inaan nabi maxamed maciisa noqdo taasaan ku weydiisanayaa hada arintaas yaa bixiya janna ilaahay baa bixiya Soomaa subhanahu wa ta'ala janna inaad gashiso kama horeysa naarta inaad ka badbaadiso kama horeyso يا نارتنا وحكى بدبادي سو إلهي ما سبحانه وتعالى وح ويديسنا وسحابي وحلا ويدينا النبي الله محمد سحابي كان ميوسع عقيدة لهين نبي الله محمد ميوسع عقيدة لهين ومركي كلمة داس ويديو يري جنة إنا كقول رفيقه أيام كويديسنا يا وح كورة نارتي يجي بدبادي وجنة يجي إنه النبي محمد ده أرن كان وقال نمو وشركي أنا جنة ويديستين أو النار أن كابد باديو تاشركي وي نبي الله محمد صمده وهابيه waxay aragtay oo nabi maxamed arkayn maxay tahay taas waa xaqiiqo iska cadahay dul khoysara oo wahaabiye aabood meesha ka soo askumeena nabi maxamed edab darra ayuu inta la hor istaagay wuxuu ku yiraahday cadaalad samee qaybintaan aad maalka u qaybisa 4 nin xaq ma ahan ilaahay ka baq waa ninkii yiri way edab darrada nimanka marka hore loogu yaqaan marka
nebi maxamed bayba la hortaagnaayeen edab darro ay dhahayeen ilaahay ka baq marka la yaabi mayno annagu la yaabayn laakiin caamada ay siraayaan ayaan rabnaa inay baraarugaan haddaan la baraaruginna waddada ay ku wadaan waxa weeye jahannamay ku wadaan nebi maxamed wuxuu ku tilmaamay nimanka khawaarijta ducaatun calaa abwaabi jahannama waa kuwa dadka ugu yeerahaya albaabaha jahannamay taagan yihiin dadka halkaasay ugu yeerahayaan haddaba haddaan nimankaas aad raacdid waxa weeye naartay salka kuu geynahayaan taasaas ula soco marka saxaabiga xadiiskiisa wuxuu ahaa jannadan ku weydiisanaya rasuulka wuxuu yidhi wax kale aan ma weydiisanaya maya taas haddaba waayahay waxaa igu kaalmaysaa sujuudda badi buu yidhi marka cibaadayso si fiican u cibaadayso nebi maxamed muxuu u tiimbareeyey ninkaas inuu jannada miciisa noqdo jannada inaad miciisa noqoto maxaa ka horeeya in naarta lagaa badbaadiyo nabiyullaahi maxamed inuu ninkaa naarta ka badbaadiyey ayuu u tiimbareeyey salawaatullahi wasalaamu caleyh nebi maxamed naarta ma ka badbaadiyey saxaabi yes asxaabadoo dhan ka badbaadiya ha annagoo dhan buu naga badbaadiyeyba nabiyullaahi maxamed maxaa masaajida ugu sii ordaynaa maxaan u soomaynaa maxaan u salaadaynaa soo nebi maxamed badbaadadiisii maaha oo haddaan raaci weyno nebi maxamed waxaa u malaysa inaanan waddo fiican raacayno maya waxyaalaha aad ku badbaadaysid baa waxay ka mid tahay mutaabacada rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh inaad rasuulka raacdo ayaa ka mid ah inaad naarta ka badbaadid ilaahay waa kaase adigu wakaa ilaahay waa taqaanaaye nebi maxamed haddaad u haysatay inuu boosaale diin inta keena iska tegan yahay wakaasaa hadda sida aad rabtid adiga ilaahay u bari marka sida aad rabtid ilaahay u caabud marka adoo nebi maxamed waddadiisa raacin bal aan aragne inaad naar ka badbaadid waxaad ku badbaadaysaa waa nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh wax kale kuma badbaadaysa wax naar kaa badbaadinaya nebi maxamed wey salawaatullahi wasalaamu caleyh ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedo in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah war haddii aad ilaahay jeceshihiin aniga isoo raaca buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii hore ahlu kitaabkaan la hadlaayay marka ilaahay baan jecelnahay bay dhaheen soo maaha haddaa ilaahay jeceshiin nebi maxamed soo raaca ilahay waa idin jeclaanahay marka wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana ilaahay waa dhaafaya subxaanahu wa tacaala wallaahu ghafuurun raxiim ilaahay waa mid dhaafa dunuubta naxariistana aayaddaas maxay ku tusinaysaa haddii ilaahay aad rabtid inaad jeclaatid nebi maxamed aad raacaysaa salawaatullahi wasalaamu caleyh wax la yidhaahdo ilaahay baan anigu keliyar aan aadahaya nebi maxamedna waan ka tegaya never wax shaqaynaya maaha nebi maxamed marnaba inta daba martid ilaahay ma aadi kartid subxaanahu wa tacaala waddada keliya oo kuu furan oo aad ilaahay ugu tegi kartid waa nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh diid ama yeel ooy aday kuu taallaa annagu haddaan nahay ahlu sunnati waljamaaca suufiya aan nahay nebi maxamed baan ku xirannahay nebi maxamed baa ilaahay noo soo diray asagaana naarta naga badbaadinayo waddadaas xaqa ah oo uu noo keenay baana raacaynaa ayadaasaana ku badbaadaynaa ka leexan mayno waddada uu noo jeexa baan yeelaynaa nabiyullaahi maxamed anas bin maalik xadiis uu ka warinayo wuxuu yidhaahday yaa bunay wiilkaygiyow buu ku yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh in istadacta haddii aad awoodid buu ku yidhi an tusbixa wa tumsiya inaad waabariisatid oo galabaysatid laysa fii qalbika qishun liaxadin fafcal qofna aada qalbiga ugu haynin samee buu ku yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh qalbigaaga nadiif ha noqdo wax khiyaana ah wax isdabamarya ah wax xiqdi ah wax xasad ah wax xumaan ah qofna qalbigaaga ha ugu qaban intaas haddii aad samayn kartid oo habeenkii iyo maalinkiiba qalbigaaga aad nadiif ka dhigi kartid sidaas samee buu ku yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh anas bin maalik uu ku yidhi yaa bunay wiilkaygiyow wuxuu ku yidhahdaa haddana wiilkaygiyow daalika min sunnatii arrinkan aan kuu sheegahayo waa waddadaydu yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh waa waddadayda waa dhaqankayga waman axabba sunnatii qofkay sunnadayda jeclaada faqad axabbanii anigu i jeclaaday buu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh waman axabbanii kaana macii fi ljanna qofkii aniga i jeclaadana macaygu jannada noqonahayaa buu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh fiiri xadiidka laba arrimoodba wuu kulansaday awalan rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh mutaabacadiisa sunnada rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh sunnadiisa inaad raacdid inay tahay nebi maxamed oo aad jeceshahay yani sabab kugu noqonaysa jacaylka rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh jacaylka aad rasuulka jeclaatidna inaad rasuulka maciisa jannada kula noqonaysa cabdullaahi bin cumar bocorkuu rasuulka jeclaan jiray xataa bocorka wuxuu cuno nabiga bocorka u jeclaa wuu raaraaci jiray meela cuntada bocorkaasuu jeclaan jiray rasuulkaa jeclaa asxaabta sidaasay ahaayeen wuxuu rasuulka jeclaa oo aan xataa aan ahayn salaadii iyo soonka waxyaalaha kale hadda qalbigaaga inaysan qofna xumaan ugu jirin salaadna ma ahan soonna ma ahan xajna ma ahan waa wax adiga kuu wanaagsan haddana maca daalika sunnadii rasuulka wey salawaatullahi wasalaamu caleyh inaad ayadaa samaysid ood ku dadaashid oo sidaas yeeshid waxay la mid tahay sunnada rasuulka inaad jeclaatay waddadii rasuulkaad raacday haddaad rasuulka waddadiisa jeclaatidna nebigaa jeclaatay salawatullahi wasalamu caleyh marka jacaylka nebiga muxuu sabab kugu noqday naarta inaad uga badbaadid kaana macii fi ljanna maxaa waaye naar ma arkaayo we naarta waa laga badbaadinhayaa
maxaa ka badbaadiyey mutaabacada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh u raacay maxaa ka badbaadiyey jacaylka rasuulka uu jeclaaday sunnadiisa maxaa ka badbaadiyey sababtii jacaylka sunnada uu jeclaaday darteed inuu nebi maxamed jeclaaday wey taasaa badbaadisa ninkan wuxuu ku leeyahay nebi maxamed kaa badbaadinaya naar inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun wax la yaab leh wey iimaan la'aanta wahabiyada ka mid taha inaad badbaadid waxaa ka mid ah jacaylka rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh almar'u maca man axaba yowma alqiyaama rasuulku wuxuu yidhahda qofka uu jeclaado miciisa noqdaa maalinta qiyaama waa maxabada rasuulka mutaabacada rasuulka shafaacada rasuulka dhiigga rasuulkoo la cabay gabadhii kaadida rasuulka cabtay waxaasoo dhan wax allaala wixii rasuulka jirkiisii ka soo go'ayoo dhiiggaas ahaana qofkii cabay oo calooshiisii gashay wuxuu yidhi rasuulka naar ku taaban mayso jacaylka rasuulkana maxaad sabab kugu noqonaysaa inaad jannada maciisa noqotido haddaba shafeecada rasuulka imow haddana wuxuu yidhahda rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh shafaacatii liahli lkabaa'ir aniga shafeecadaydu dadka kabiirada dembiyada waaweyn galay ayayba u sugnaatay buu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh ka mid a ummatulmuxamadiyada ka mid a ummatulijaaba way wax laga hadlayo ummatulijaaba way wax laga hadlayo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhaahdaa xadiis kale wuxuu ku yidhaahday ambiyada dhammaantood nin walbaba duco mustajaabahu leeyahay nin walba ducadiisii horow u gudbista anigu tayda waan dibdhigtay buu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ummaddaydaan u dibdhigay buu yidhi yacni inaan ugu shafeeco ummaddayda ayaan dib u dhigay buu rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh halkaasi marka maxaa ka ogaatay walaal maxaa ka ogaatay waxaa ka ogaatay nebiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh in uusan ahayn sida ninkan uu wax idinkugu sheegay walaalayaal nimankan wahaabiyada ha ku sirmina ayagii baa dhumay guri gubta kama noox ayagii baan diintii islaamka ku taagnayn waddadeedii oo qarqarkay uga taagan yihiin diin qarqarka looga taagan yahayna waa caano ku jira koob oo geeska looga istaagay waa daadanayaan haddaba ogaada waa idinkaga digahayaan ninkan iyo kuwa la midka ahba yaysan idin dhuminin waxaan ku khatimaynaa beydkii asaga ahaa yaa rasuul allaahi yaa khayra kula alambiyaa najinaa min haawiya ya zakiya almansibi yaa rasuul allaahi yaa khayra kula alambiyaa najinaa min haawiya ya zakiya almansibi yaa rasuul allaahi yaa khayra kula alambiyaa najinaa min haawiya ya zakiya almansibi amiin rasuulka ilaahayow naarta naga badbaadi rasuulka ilaahayow shafeecadaadaan ku weydiisan rasuulka ilaahayow macaaga inaan jannada noqonnaan rabnaa ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal halkaasaan kusoo koobahayaa qaybtan waa qaybtii labaad qaybta saddexaadna insha allahu tacaala la soco iyadana aan uga jawaabi doonno mawlidka rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh kitaabkii lagu ammaanay oo wax uga sheegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu